bulshada Soomaalida waxaa sanadihii u dambeeyay ku soo badanaya dhalinyaro aaminsan afkaar khaldan oo liddi ku ah diinta Islaamka kuwaasoo la kala baxay magacyo kala duwan sida cilmaani, caqlaani, mushakkik, munaafiq, masiixi, mulxid. qaarkood waa dad aqoon leh oo aad u akhriyay buugta falsafada oo ay ku qoran yihiin aragtiyaha gaalada iyo magaranaysa aaminaadoodu. qaarkood waa dad aan aqoon lahayn oo si sahlan loo khalday. haddaba waxaan in badan baadhitaan ugu jiray sidii aan u ogaan lahaa sababaha ugu waaweyn ee kalifay in dhalinyaradaasi ay lumiyaan aaminaadooda saxda ah ee islaamiga ah. idinka laftarkiina insha Allah waxaan muuqaalkan u soo duubay inaad wixii aad ku darsan kartaan aad ku darsataan oo aad dib igaga biirsan insha Allah. waayahay anu waxaan isiri 6 sababood ayaa ugu waaweyn oo kalifay in dhalinyaradaasi ay lumiyaan aaminaadooda saxda ah ee islaamiga ah. 1 aqoon darro iyo jahli. qofku markuuna aqoon u lahayn diintiisa iyo weliba maadigaba waxaa sahlanaanaysa in si sahlan lagu khaldo. waxaa soo badanaya clubhouse iyo baraha bulshada qolal badan oo la isugu yimaado oo dad magaranaysa mulxidiin ah oo aad aqoon u leh ay ku jiraan, kuwaasoo qofkii aan aqoon lahayn oo aqoon diimeed aan lahayn si sahlan u khaldaya ama u limanaya, xitaa ku kalifaya inuu noqdo daaci iyaga xaggooda ka socda. qodobka labaad oo aan u sabaynayo in dhalinyaradaas ay saamaysay waxa weeye jacaylka dhaldhalaalka adduunka. waxaad arkaysaa dhalinyaro badan oo arkaya quruxda ay ku nool yihiin reer galbeedka kadibna aaminaya in magaranaysaa quruxda iyo dhaldhalaalka iyo nimcada ay ku jiraan dartood ay tahay jid saxan oo ay ku sugan yihiin ilaahayna ugu nimceeyey. markaas kadibna ay aaminayaan diinta islaamku inay tahay diin fakhriya, diin aan saxay ahayn, diin magaranaysaa waxyaalo noocaas oo kale ay aaminayaan. qodobka saddexaad aan isleeyahay dhalinyaradaas inay diintooda afkaar liddi ku ah inay aaminaan waxaa sababay khilaaf kala dhexeeya ama cadaawad ay u qaadeen culimada iyo weliba axsaabta diiniga ah. in badan waxaad arkaysaa oo uu nebigu sheegay in aakhiru zamaanka ay soo baxayaan firqooyin badan oo kala duwan oo afkaar kala duwan xambaarsan. marka qofka muslimka ahi markuu arko qaabkay u dhaqmayaan waxaa laga yaabaa inuuba aamino in wejiga saxda ee diinta islaamku noocaas yahay, kadibna uu diintii la colaytamo, sidoo kale uu janjeersamo afkaarta kale ee gaalada oo liddi ku ah diinta islaamka, kuwaasoo mar walba u yeeranaya qofkaas isaga ah. fikirka sababta afraad oon isleeyahay saameyn bay ku leedahay dhalinyarada iyada ah waxa weeye weji xun oo ay ka arkeen dad ku nisbo sheeganaya diinta. in badan waxaad arkaysaa dad magaranaysaa diin sheeganaya misana waxyaalo badan oo diintu aanay ogolayn samaynaya ama la imanaya. sidaa darteed qofkii aan aqoon badan lahayn wuxuu aaminayaa dadka diinta u nisbo sheeganaya misana khaldamaya in ay yihiin inay afkaarta kala soo baxeen diinta islaamka, sidaa darteed qofkaasi fogaanayo. laakiin dadkaasi waxay ilaaween in diinta islaamku ay saxan tahay, diin xaniifa ay tahay, laakiin bini aadamku uu khaldami karo oo khaladaad ay ku dhici karaan, laakiin miisaanka rasmiga qofka laga doonayo uu yahay in kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka uu ka raadiyo. qodobka shanaad oo aan isleeyahay dhalinyarada saameynba ku yeelatay waxa weeye akhrinta buugaagta falsafada iyo weliba waxay ku tilmaamaan maanfurka ee ay qoreen dad magaranaysa gaalo ahi ama buugaag ku salaysan kuna jaan go-an afkaarta ama aaminaada kafarada iyo gaalada. in badan waxaad arkaysaa dhalinyaro aad wax u akhriya misana magaranaysa buugta weliba dee falsafada aad u akhriya, waaga dambena aad arkaysa muran badan inay ka keenayaan waxyaalaha ay aaminsanaayeen oo fitriga ahaa ee lagu soo barbaariyey oo weliba diinta islaamka ah. sababtaasna waan isleeyahay oo dee in badan marka waxaan uu qofku dhex galo oo akhriyo aakhirka dambe qofku wuxuu caado ka dhigto way bedelaan. qodobka lixaad ee u dambeeya ee aan isleeyahay saameynba ku yeelatay dhalinyaradaasi in ay nuqsaanto aaminaadooda waxa weeye fikradaha waaweyn ay la socdaan hay'adaha reer galbeedka ee weliba waddankeena jooga sida globalizationka ama alcawlama, in caalamka laysu furo, caalamku uu noqdo caalam horumarsan. tan weliba hadda ninkan maxamed bin salmaan ee sacuudiga ahi fikradda aadka u saamaysay ah oo ay aamineen in diinta islaamku ay tahay xabsi oo kale, lana rabo qofku inuu xor noqdo, dimuqraadiyad yeesho, adduunku meeshuu doono uu maro. sidoo kale dimuqraadiyadda laftarkeedu waa soo hoosgalaysaa
feminismka ama dumarismka xuquuqda dumarka inay magaranaysa dumarka xuquuq baa ka maqan waxana ka maqan dad badan marka ay afkaarta noocaas ah ay saameyn ku yeelato oo ay aaminaan in diinta islaamku ay tahay diin xidhxidhan dadka qaar dulmisa wax noocaas ay aaminaan marka insha Allah taala adiga muuqaalkan daawanaya waxaan ka codsanayaa ilaa aad fikirkaaga qaybta commentiga inoogu rabtay inaad halka bixin ma aragtay su'aashan ku weydiinaya waxay tahay kow ma aragtay dhalinyaro aaminsan afkaartan khaldan ee aan sheegayo labo maxaa sababay baad isleedahay ugu weyn in dhalinyaradaasi ay aaminaan afkaar liddi ku ah diinta islaamka aad baa u mahadsan tahay muuqaalkan sheer garee si aan xog badan u helo kadibna insha Allah xalkeeda aan u keenno sababaha waan ururinayaa mid kastana muuqaal baan ka soo sameynaya xalkeedu yahay insha Allah aad baa u mahadsan